Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waa Mustaqbal Traders, yani waa macalinkiina. Maanta halkan waxaa idinku soo gudbin doonaa lacagta GBP USD oo runtii dhaqaaq la taaban karo sameys isbuucan iyo haddaba isbuuca xiga sida aan uga faa'iideysan karno. Maanta waa 21 bisha June 2021. Lacagtan run ahaantii in badan waxay ku jirto consolidation wax la dhaho oo ay kaga jirto halkan consolidation ayay ku jirtay oo in muddo halkaas ay ku rafinaysay lacagtan. Ugu dambeyn waa ay ka baxday waxa ayna dhaqaaqday lacagtan. Tusaale, lacagtan salkii halkan ayuu ahaa, salkii halkaas ayuu ahaa sidii muuqata. Salkii halkaas ayuu ahaa. Dad badan waa ay ka faa'iideysteen, dad badanna kama aysan faa'iideysan. Haddaba lacagtan meeqa biib ayay dhaqaaqday, goorma ay soo dhaqaaqday lacagtan? Horta marka koowaad halkan waxay tagtay 1 bisha June. Lacagahaas ogtihiinba waxaa jiro waxa la dhaho bille, lacagta iskama dhaqaaqo. Candle waxaa jiro ku shaqeeyo maalin, candle waxaa jiro saacad leh, candle waxaa jiro 15 sida candle hal daqiiqa jiro. Marka candle walba saacad ayuu leeyahay. Marka candle-ka sidiisaba kuwa support iyo resistance ka tagani waxa ay leeyihiin inta badan maalin ama bil ay leeyihiin ku xisaabtan. Haddaba lacagtan waxay tagtay 1 bisha June, waxa ayna intaan ku laabanaysay muddo ay aad u badan. Maanta way tahay taariikhda 21 waa kaas halkaas ay joogtaa 21 bisha June. Waxayna dhaqaaqday biib aad u badan ay dhaqaaqday. Markii qof halkan ka soo raacay lacagtan waxa uu ka qabsaday 443 biib ayuu caawa haystaa. Qofkii salkaas ku adkaystay wax badan ayuu caawa haystaa. Maadaama hadda ay sidaas tahay oo dadka ka faa'iideystay hore uga faa'iideysteen, hadda waxaan rabnaa annagana sidee ayaan uga faa'iideysan karnaa. Haddaba in uga faa'iideysano lacagtan waxaan u baahanahay inaan tagno monthly-ga ayaan kasoo bilaabeynaa oo ah meesha ugu hooseysa anagoo tagi doono ilaa 1 hour insha Allah. Haddaba lacagtan meel walba ay taabatay ayaan saarneynaa awgeedan trend line-kii waxaan saarnay anaga lacagta afkeedan saaraynaa. Meesha ay taabatay ayaan saaraynaa saas ayaan leenahay. Tan afku saar. Hadda lacagtan maxay sameysay 1 2 3 oo markii saddexaad ay sameysay break out wax la dhaho sooma. Haddaba lacagtan maadaama ay break out sameysay waxaan u baahnaa inaan sheegno sida looga faa'iideysan karo. Waxaan marka leenahay trend line kalna sii inta noo saar trend line kale. Lacagtan saas waaye. Marka halkan waxay ku sameysay 1 touch 2 touch kii saddexaad inta ma soo gaarin. Haddaba marka waxaan leenahay maadaama halkan ay soo gaarin waxaan u baahanahay lacagtan kulliba 3 touch ee ku fiicneed maadaama aysan sameyn maalmaha kamid ah way sameyn doontaa. Haddaba inta maxaa uga jeednaa meeshaas meeshan waxaan saarneynaa
haddaba meeshan waxaan saaranay horizontal linekaas. Trainyada waxay kala yihiin horizontal iyo trend line. Trend line horta waa wax aad u fiican. Horizontal line iyo trend lineka waa wax aad u fiican, waayo waxaa saaranaysaa uptrending iyo downtrending waxaad u isticmaali. Laakiin horizontal line asaga horizontal support iyo horizontal resistance ayaa u isticmaali kartaa oo keliya. haddaba lacagtan markay saas tahay waxaan u baahannahay horizontal supportingkeeda ayaa aad muhiim u ah. Horizontal kow inaan kasoo bilaabeynaa waa meel muhiim ah. labo waxaan ku xijinaynaa midkan muhiim waaye, kuwan ayayna horizontal waaye waana muhiim. haddii hadda aad saaran weydo hadhow dhibaatay ku keenayaan. marka daarti intaasoo dhan ma wada calaamadaysanaysid, laakiin kuwa waaweyn kuwaasoo kale waaye iyo kan intaas waa muhiim. kuwana waa muhiim. kuwan waa muhiim waayo horizontal area waxaa waaye mar walbo waxaa ka imaan kara khatar ayaa ka imaan karta. waxaana fahmi kara qofka bartay cilmiga dhaqaalaha in isticmaalka trend lineka marka la isticmaalayo oo loo isticmaalayo vertical support markii loo isticmaalo trend line iyo resistance. waxaa muhiim ah inaa heshid horizontal support iyo horizontal resistance inaa heshid waa muhiim oo aad isku jaangoysid. haddii aadan helin labadaas waa khatar. haddaba lacagtan horta waxay la kulanta wax loo yaqaano double bottom. mar walbo oo double bottom aa aragtidne lacagtaas waxay aadaysaa buy markii lacagtan waxaa ku dhacay saan ayay dhahday, xaggaas ayay tagtay, waa la soo celi. lacagtan inta u badan imaato oo weliba soo jabsato ilaa ay halkaas imaato saas u badi. markaas kadib ay dhamaysato 1 touch 2 touch iyo 3 touch ayna baxdo bartaas ay tagto ayay u badan tahay. lacagtan la dhaho GBP USD oo GBP in ay hoos sii ay doonto ayay u badan tahay. waana arki doonaa ha qaadato sanad 2 sano amase wixii ka badanba. haddaba saa ujeedno halkan waa laga soo celinaya lacagtan. markaadna inta marka imaato ayaa xaalad la qiimeyn karaa. haddii soo jabsato meeshan inta ay imaanay haddii sii jabsato marka saas lacagtan u socoto hoosaas u gasho ayay u badan tahay insha allah. marka lacagii horta pointyadii muhiimka ah oo dhan waan calaamadaysanay. waxaan u baahannahay oo keliya inaan tagno 1 saac iyo wixii kasii hooseeya.
marka lacagahan inta maxay ka samaysay GBP USD halkan halkan marka maxaa dhacay 1 hour-ka waxaa dhacay waxyaabo badan ayaa dhacay oo ka mid ah wixii dhici lahaa. Hadda inta waxaa naga anfacaa marka inta waxaa naga anfacayo sidaan hada beelo lacagtan u jeedaa dhaqaaqan oo halkan ay ka gashay ayaa haddana intoo kale ka gashay si ay kugu cadeyso inay buy tahay waa ayna dhacday taas.
marka lacagtan waxay u baahan tahay indii inta sumata ay soo retestada in bay aadi karto amase inay ka soo laabto halkan ee retest ilaa halkan hoos sii aad labadaas u mid waay mar walba waxay ku xiran tahay haddii hoos imaataan retest haddii kor aadaan retest cashirka maanta intaas waa noo ogyahay wabillahi tawfiiq. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.